5 qurubyada. Qurubyadu waa erayo ama lifaaqyo ay hawshoodu ku eg tahay isku xiridda erayada ama weeraha. Waxayna u kala baxaan 4 qaybood: horyaalayaal, xiriiriyayaal, qurub diiradeedyo iyo qurub weereedyo. Ugu horreyn, horyaalayaashu waa 4 qurub oo falka hortiisa laga helo. Waxayna kala yihiin u, ku, ka iyo la. Horyaalayaashani iskood ayay isugu dhafmi karaan. U iyo ku marka la isku geeyo ugu bay noqonayaan ku, kugu, kula, kula, ama waxay ku dhammaan magacyaalada qofeed ee dhiman. Magacyaaladii qofeed ee dhiman waxay kala yihiin i iyo is iyo wax la mid ah. I iyo ku marka la isku dhajiyo horyaalkii lagu dhajiyo igu bay noqonayaan isu, is iyo u, isu, la, ku, lagu, na, la, nala. Tusaale, 1 iyo 2 isu gee. Isudaas waxay ka kooban tahay magacyaalkii is iyo horyaalkii u. Sidaan casharka hore kusoo marnay, falma gudbihii markaanu ka hadlaynay, waxaan isticmaalnay tusaalihii ahaa Ciise baa dugsiga u ka lahay. Udaasi waxay ka horeysaa mar walba falka ka lahaada. Markaa saasay horyaalayaashu mar walba u horyaalaan falka. Iminka 1 iyo 2 isu gee marka la yidhina, isudaas waxay ka horeysaa falka geeda la yidhaahdo. Markaas horyaalayaashu saasay falka hortiisa had iyo jeer u hor socdaan. Xiriiriyayaashu waa erayada ama lifaaqyada kala ah iyo, na, se, ama, mise, oo, laakiin, hase yeeshe iyo waxyaabo badan oo la mid ah. Siyaabo badan ayayna xiriiriyayaashani isugu xiraan erayada iyo weeraha. Tusaale, baabuur baa soo socda waa weer, iska jir waa weer, waa la isku xidhay, baa isku xidhay. Haddii tusaale kale aan isticmaalo, buugganna yaa qoray. Buuggan 2 buug baa laga yaabaa inaan ka hadlay. Waxaa la sheegay buuggii hore qofkii qoray waan fahmay. Buuggii kale markaa weydiinayaa oo ah weer kale oo xiriir la leh weertaa hore. Marka waxaan leeyahay buugganna yaa qoray. Marka ereyga buug na'da aan gadaal ka raaciyay oo ah xiriiriye waxay tilmaamaysaa arrimahaas ayaan u adeegsaday. Buugganna yaa qoray. Qurub diiradeedyadu waa 2 erey. 1 waa baa iyo ayaa. 2 waa oo lagu diiradeeyo warka cusub ee aan hore loo sii ogeyn ee weerta. Weertu badan waxay ka kooban tahay war la ogyahay iyo war aan la ogeyn. Marka warka la ogyahay ee la hayo, qurubka baa ayaa wuxuu diiradeeyaa magacyada ama magacyaalada. Waxaan markaa la ogeyn weertaas qofka falka geysan ama wixii sameynay ama magacii baan la ogeyn ama magacyaaladii. Sidaas daraadeed baa loo adeegsadaa baa iyo ayaa. Tusaale, cali ayaa yimid. In la yimid waa la ogyahay, laakiin qofka yimid lama oga. Sidaas daraadeed ayaa iyo baa waxay diiradeynayaan magacyaalka ama magaca. Cali ayaa yimid, cali baa yimid waa isla midkii. Qurubka waa wuxuu diiradeeyaa falka amaba magaca ku sugan kaalinta falka. Tusaale, cali waa yimid, macallin, ama cali waa macallin. Marka waxaa la isweydiinayaa, waa wuxuu diiradeynayaa ama waxay nooga tilmaamayaa falka. Marka cali waa la ogyahay oo waa la isla yaqaanaa. Waxaad odhanaysaa cali ma yimid. Haa, cali wuu yimid. Marka inuu qofkaasi falkii uu sameeyey imaanshihii in kale ayaan la hubin. Cali muxuu yahay lama yaqaano. Cali waa macallin. Marka saas weeyaan. Macallinku waxa weeye magac ku sugan kaalinta falka sida idin muuqata. Ugu dambeyntii, qurub weereedyadu waa 2 erey. Waxayna kala yihiin ma iyo ha. Qurubka ma waxaa loo adeegsadaa weydiinta ama diidmada. Tusaale, warsame ma yimid waa weydiin. Maya ma iman waa diidmo. Qurubka ha waxaa la hordhigaa fal amarka diidmada ama falka habka talada. Tusaale, ha tegin suuqa waa amar. Ha baxo imika waa habtalo.